لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فدغان وفدغي سيديداد فدغي سغالاد اندها عفوا oo kamida fadhiyadii ku saabsanay su'aalihii ramadaanka oo aad kala socon jirteen kanaalka xogta salafka. fadhigan insha Allah taala galabta waxaan ku soo qaadanaynaa 5 su'aalood oo kamida su'aalihii walaalada ku xiran kanaalka inay soo gaarsiiyeen. su'aasha koobaad saailka waxa uu leeyahay qofkii maalin ramadaan ay saxdo kadibna isku janaabo oo biyihii shahwada ay ka yimaadaan oo qarwo, soonkiisa arrintaa maxay u dhimaysaa? jawaabtu waxa weeyaan arrinta iyada soonkiisa waxba u dhimi mayso, soonkiisa waa saxiix. waa midda koobaade waxaan wax khiyaarkiisa iyo doorashadiisa ku yimid maaha, waa wax awooddiisa ka sarreeya wey. midda labaad, culimmadu ijmaac bay soo guuriyaan arrinta noocaas inay bannaan tahay. ragga ijmaaca soo guuriya waxaa ka mid a ibnu cabdilbar raximahu llahu tacaala, ibnu alxasmi baa ka mid a, ibnu rushdi baa ka mid a, nawi baa ka mid a, ibnu taymi baa ka mid a. marka sidaasay iskaga bannaan tahay arrinta noocaasa, wax culeys eena ma laha. saa'ilka labaad waxa uu leeyahay ama su-aasha labaad isla saa'ilka uuna soo weydiiyey waxa uu leeyahay haddii qofka musalliga uu tukunaayo cawradiisa meel ka mid ay bannaanaato, ma inuu salaada ka baxaa isla markaasuu dib haddana usoo bilaabaa, mase waa inuu markaaba asturo? maxaa laga doonayaa? jawaabtu waxaan leenahay horta marka koobaad cawrada in la asturo guud ahaan ama salaad ha lagu jiro ama yaan salaad lagu jirine waa arrin waajibay wey. taa waa inay dadka muslimiinta ogaadaan. eed baa loo fududaystaa, weliba gaar ahaan da-yarto. rag iyo dumarba cawradooda inay bannaanaato ayaa eed u badan. taa horta waa in lagu xisaabtamo marka hore cawrada in la asturo inay waajib tahay. marka labaad waxaan leenahay cawrada in la asturo salaad waxay u tahay shardi, waa shardi oo min shuruudi salaad ka mid wey. waxayna culimmada u daliishadeen qowluhu tacaala yaa bani aadama khuduu ziinatakum cinda kulli masjidin buu ilaah yidhi. aadam caruurtiisiyow khuduu ziinatakum ziinadiinna qaato. aziina hunaa waa athiyaab wey, sida cabdullahi bni cabaas uu ku fasiri dharka salaada loo xirto cawrada lagu asturtaa laga wadaa. marka salaad kasta agteedu ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala dharkiinna xirto oo ziinadiinna qaato. waxaa kale ay culimmada u daliishadeen xadiidkii nabigu calayhi salaatu wasalaam uu lahaa laa yaqbalu allahu salaata xaa'idin ila bikhimaarin. qof qaangaar ah ama haweeney qaangaar ah salaadeeda ilaahay ma aqbalaya subxaanahu wa tacaala ilaa inay madaxeeda uu dadan yahay mooyaane. xadiidkaas oo tirmidi iyo abu daawuud iyo keyrkood bay soo saareen oona xadiis sugan ah. marka waa shardi salaada shuruuddeeda ka mid ee ma aha dhalinyaradu in badan oo ka mid siday u haystaan oo ay markaa waxaweye ku qaldameen ayagoo markaa dad kale ku dayanayo iyo niman aan muslimiin ahayn iyo reer galbeed iyo wax lamid ayagoo ku dayanayo inay cawradooda bannaanka iska taallo iska fududaysteen. sidaa maa hawsho ee way ka culus tahay oo waa shardi min shuruudi salaadi ka mid qodobka saddexaad wuxuu yahay salaada kama baxayo ee isla markaa waxaa laga rabaa inuu asturo. hataa culimmadu qaar waxay dhaheen hadday meel yar ay tahay oo aan asturmayninoo dilaacday hadday tahay inuu aduu gacanta saari karo ama uu wareejin karo, dhan kale uu wareejin karo oo qarin karo, oo inuu isku dayo ayaa la rabaa. haddii marka uu waqti ay qaadato uu intaa asturi waayo salaaddii waa ka jabaysaa. waana sida culimmada jamhuurtooda ay qabaan oo ah inay salaado shuruudeeda ka mid tahay sadrul cawra.
adiladeedan aan hore usoo sheegnay marka isla markaa inuu asturo ayaa laga rabaa haddii uu asturi waayo way ka buraysaa salaadood dib uu usoo bilaabaya saa'ilka saddexaad waxa uu leeyahay qofka haddii uu liqo sooman candhuuftiisa hadduu liqo ka war arrintaas dad badan bay haysataa oo haysto candhuufta iska caadiga ah inay weyse macnaha soonka buriso waa qiso oo dadka badankooda qabsato qofkaasoon cilmi lehna way ku dhacdo arrinta noocaasa jawaabtu waxaan leenahay candhuufta waa laba qaybood wey mid waa mid xaakada loo yaqaano oo malaxda ay la socoto oo xaggaas iyo maskaxda ka soo go'do oo qofka markuu tuuraayo wax weyn uu tuuraayo gaar ahaan marka qofku waa hergab iyo wax ku dhacaan inta badan ka timaado taas iyada ee soonku way burisaa candhuufta kaloo iska caadiga oon afkaada ka baxaynin haddii ayadu aan la aruurinin oo ah qofka intuu aruuriyo markay badato hal mar aanan liqaynina jug siinaynin oo iska candhuuf caadi ay iska tahay oo afkaada aan ka badnayn lana aruurinin ayadu taa waxba dhib ma laha taa waxba burini mayso culimo badanaanaan ijmaac ku sheegay masaladaas inayna waxba dhib lahayn oo imaamu nawowi raximahullahu tacaala uu ka mid yahay ibnu muflix uu ka mid yahay ibnu xasmi uu ka mid yahay maawardi uu ka mid yahay waxay sheegeen candhuufta noocaasa ee aan afka ka badanin aan la aruurinin oo hadda marka aan loo qasdin oo inta la aruuri markay badataan aan la liqin tan noocaas iska ah waxba dhib ma lehe waa qofku hadduu liqo soonkiis waxba yeeli maysa saa'ilka afaraad waxa uu leeyahay salaada taraawiixda maadaama hadda aan ognahay oo masaajidada ay xiryihiin korona sababtiis ilaahay ha noo furo subxaana wa tacaala salaadii taraawiixdii ee dadka la tukan jiray ramadaanka tv-ga ma kala socon kara oo tv-ga ma ku xiran kara oo ma la tukan karaa qof tv ka tujinayo ama gurigiisa ha joogo ama masaajid ha jooge oo meel kale joogo ma ku daba xiran karaa buu leeyahy masaladaas waxaan leenahay qodobka koowaad horta ma bannaana arrintaas waana siday culimmadu islaamka qabaan 99% wax ka badan ayaa sidaa ku tagay in aan macnaha idaacad iyo tv iyo maxaa la yidhahaa baraha bulshada hadda ay ku xiriirto oo si toos ah loo gudbinayo iyo midna inaanan salaad lagu daba xirin karin taa waa qodobka koobaad waxay culimmadu u diideen ay leeyihiin dhowr arrimood baa ku sugan waa midda koobaada horta waa ixdaathu hay-atin jadiida lisalaati qaab cusub oo aan la aqoonin oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisi iyo taabiciintii iyo culimmada islaamka o dhan iyo madaahib alarbaca midna aan laga keenin oo salaad loo tukanayo wey oo hadda lasoo kordhi wey taa waa mid hay-ad cusub iyo qaab cusub shay cibaado inaad adiga u jidayso oo jeebkaada ah ama sida kula muuqato ah ama sidaa dadka adiga kugu xiran ay jecel yihiin ah taana ma bannaano inaad usoo kordhiso ma bannaano nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxaa ku sugan inuu yidhi man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa raddun qofkii camal sameeyo camalkaana shareecadanaga iyo amarkanaga aadna ku dul sugnayn oodna waafaqsaneen waa lagu celinaya riwaayad kale waa tii ahayd man axdatha fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa raddun qodob waa qodobkaas qodobka labaad waxay dhaheen waxaa ku sugan shaciiradan weyn iyo macnaha shacairkan weyn oo aadka weyn oo ah jamaacada in laiskugu yimaado ah oo la fududaysta ayaa ku sugan maxaa yeelay hadda sabab iyo xanuun jira sababteeda masaajida u xiran yihiin iyo jamaacada u xirantahay haddii beritu la furo dadka qaarkood hadday maqlaan arrintaas waa wadaadada qaar baa baneey haddee beritu waxa weeye anigana gurigaydaan iska jooga oo halkaasaan tv-ga kala socon oo idaacaddan halkaa kaga daba xiran dad iyo mashquulkood iyo masaajid laiskugu tagay waxa o dhan maxaa igeli ayay dadka qaarkood soo rogayaan beritu saas daraaddeed marka shaciiradan weyn ee jamaacada oo nebigu calayhi salaatu wasalaam hataa uu ka diiday nin indhala inuu masaajidka ka baaqdo uu yidhi imaad haddaad aadaanka maqlayso
in la fududaysta ayaa ka soo baxaysa. taana waa qodob kale. qodob saddexaad oo ku sugan oo culimmadu waxay dhaheen intaaba dhanba ka culus oo ah in nin walba oo wuxuu rabo iska jeclaado inuu dadka hadhow usoo gudbiyo kadibna layska dabagalo oo layska raaco ayaa ka soo baxaysa. oo rukhasul culamaa waxay culimmadu u yaqaanaan ashyaada rukhaskaana in macnaha nin walba wuxuu ruksiyey la raaco, arrinta iyada waa diin la-aan wey. ruksada haddayna daliil sharci ah muctabar ah ama qaacido ama asal min usuuli shariica ay ku taagan tahay, taa laga hadli maayo. laakiin rukso aan waxba waafaqsanayn oo nin walba hawadiisii siduu ugu arko iska fatwoodo in la raacraaco oo la dabagalo oo daliil la moodo oo lagu raaco oo lagu dabagalo, arrinta iyada waa diinlaan wey. culimmaduna islaamka waxay soo guuriyeen ijmaac inay arrintaa xaaraam tahay. dad qaar oo waxaa jiro madaahibtay dhexgalayaan, kadibna qowl madhabka uu leeyahay meel ku arkayaan, muxuu cuskan yahay, muxuu daliil uu leeyahay, iyo maxaa mafsado uu leeyahay, midna fiirin maayaan. madhab kale haddana dhexgalayaanoo waxbay ka soo keenayaan. talfiiq wax la yidhaaha bayna almadaahib ayay samaynayaan. kadibna intaa wuxuu u samaynaya waxaa weye dantuu asaga leeyahay, wuxuu ku gaaro ayuu madaahibta ka dhex raadinaya. hadhowna wuxuu rabaa hebel baa sidaa yiri, hebel baa sidaa yiri inuu yidhaaho. maxay cuskadeen iyo maxaa u daliil iyo maxaa mafaasid ka dhalanaya midna eegi maayo. saa daraaddeed marka rukhaska noocaas ayay dabagelgalayaan. arrintaasna waa xaaraam wey. culimmadu islaamkana ijmaac bay soo guuriyeen arrinta inay xaaraam tahay. rukhaska haddayna daliil sharci ah ama asal min usuuli shariica ayna ku fadhinin, waa in laga leexdo way. waa xaaraam in la raraaca maaha. culimada ijmaaca soo guurisa ibn cabdilbara ka mid iyo keyrkiisba kitaabkiisa jaamic bayaan ilcilmi wa fadlihi. culimada qaarna waxay dhaheen qofkii rukhas alculamaa raraaca ama nawaadir alculamaa waxaa weye kharaja can ilislaam, islaamka ayuu ka baxayaa. maxaa yeelay wax kastoo dunidan ka jira, hataa gaalniman allah ka dhigay, wadaad banneeyo la wayni maayo. marka nin walba oo iska hadla haddii la raaco ee la dabagalo ee taageero loo noqdo, arrintaas diin la-aan baa ka soo baxayso. nimanka qaarkood oo iska fadwoodin jiray ribada inay iska bannaan tahay, ilaahay rasuulkiisa ay xaaraam yeeleen. oo haddii la rabo guryo laga iibsan karo, haddii la rabo baabuur lagu iibsan karo, haddii la rabo dholalka lagu iibsan karo, oo wax aan daruuro gaarsiisanayn daruuro ku sheegi jiri, wax xaaji baahi aan gaarsiisanayn baahi iyo xaaji ku sheegi jiri, inay haddana maanta fatwoodaan maxaa masaajid ku falaysaan, tv-gaad kala xihan kartaan, oo idaacaddaad kala xihan kartaan, oo maxaa la yidhaahaa facebook aad kala socon kartaan, salaadaha ood kaga xihan kartaa inay dhahaan, wax qariiba maaha. waa wax aad iyo aad u fudud. marka arrinta noocaas waxaan leeyahay waa ka digaynaa, khatar badan ayaana ka imaanayso. imaamu nawowi raximah llahu tacaala fataawadiisa waxaa la weydiy qofka asagoo madhab haysto madhab kalo macnaha waxa weeye ma qaadan karaa wax asaga faa'iida ay ugu jirto u arko inay faa'iido tahay, isagoo raacraacaya daliil iyo midna aan ku raacaynin. madhabkaada adigoo haysto madhab kale haddii aad aragta mas'aladan in lagaa xoog badan yahay oo madhabkiina laga xoog badan yahay inaad raacdo, ayadu taa waa waajib wey, waxba dhib ma laha. laakiin waxaan daliil midna lahayn oo rukhas iisay naftaada jeceshahay inaad madaahibta kale ku raacdo ayaa sheekha la weydiy. wuxuu yidhi arrintaa ma bannaano, waana khatar ayaana ka imaanaysa walaalyaal. walihaada marka arrintaas waa ka digaynaa. dadkan waxaa weye maanta diinta lagu kari la-yahay oo wax walba inay macnaha waxaa weeyaan hawadooda ay iska raacaan iska jecel, waqti fitanna la joogo in wax noocaas dadkii loo fadwoodo, arrintaas waa arrin khatar le weeyaan. walihaada waxaad arkaysaa culimmadu islaamka xataa nabigeena calayhi salaatu salaam laga soo bilaabo iyadoo nusuusta qaarkood iyo waxyaalaha qaarkood dadka aan loo sheegaynin, iyadoo maslaxa iyo wax la eegaayo. oo qaar waxaa dhici jirtay nabigu calayhi salatu salaam saxaabada qaar inuu cilmi u sheego kadibna uu yidhaha dadka ha u sheegina. mucaad baaba ka mid ahay. markuu nebigu calayhi salaatu salaam mucaad
وكيري يا معاذ أتدري حق الله على العباد وحق العباد على الله وعيري الله ورسوله أعلم حق الله الضمد وكليه ما قرنيسا كوسا الله الضمد أي كليه ما قرنيسا مركز وحير الله ورسوله أعلم إله رسولك سيقانه مركز الله شيء وحلل حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا حق الله الضمد وكليه وحوي إني يحبل له ذا عبادة أساف في قريان وبر احترام وكلي عابدان وي حق نما أيكو عابدان كلي إني عابدان وي وهكذا وعبادة الله خالص يا الله سبحانه وتعالى حق الله أضمن يكليه إنه حق قف كان حبل له ذا جنين وعبادة أساف في قريان إن الله عذاب وي سبحانه وتعالى مركا سوحير يا رسول الله أفلا أبشر الناس تذكر مو بشارة يا رنتان بشارة وين نبي وحير عليه لا تبشرهم فيتكلوا عليه أي ثلاث أرتان مركا ضد أرنتاز إني معناه وحوي مركا كل دجمان لقى عبسنا الإسلام كقعصب ودائما مقلان بإنت نيكي سمايبه وحاول ينج إلهي عذاب ما دائما مقلان إني واجبات بدن كتجان وحيال بدن شرع كمية كتجان لقى عبسنا درتد باللوقري ساد رد معاذ رضي الله تعالى عنه مركو ديمان ربي أكتد أيو شيء مركا علمي قار مرمرة مصلحات درتد لو قرين كرا سي مركا وحاول دتك قاركود أي أوقف النوبين مركا وحان لنا أرنت النوع عازي دتك وسعينا وأردايو إلهي كعب صدينا سبحانه وتعالى وحوال باو صباح والرخصاء وقدات كوها اللبا إن أي معناها اللي اسكت لفتوضو ومدى اللي قد حباهي دتك وقت بدن كوب بحنايو إلهي كعب صدينا أرنت النوع عاسا سؤالي جواب حالي أرنت ما بنانو سألك قدام بيو وحاول لي يا قفكي وحنا أما عبا أسقوه المانسن صون كيسو مجبايا جوابته حلنا مايا صون كيسو حبا ملها صون كيسو لما استرنا واسكسي وضنايا وحانا دليلا قوله سبحانه وتعالى إلهي وحير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلهي سبحانه وتعالى الضوامدكم مكلفين نفكم مكلفة إلا وسعها وحي كري كرتمويان آيات كحكت إلهي محكويري الضوامد إلهي وحي كبريان ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخضانا ربي هنو قبن وحي آن هلمانو وحي آن قفنو قدعا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخضانا أدان قفنو أدان هلمانو وحا النبي قال كسون عليه السلام إنه يري حديث صحيحة إلهي سبحانه وتعالى إنه يري قد فعلت أرنت واسمي أو وحي غلط إنك قدعو وحي هلمانو أصميسان إن قبن ماي وحكى العلماء الدليشدين قوله صلى الله عليه وسلم نبي يري من نسي قفكي هلمامو فأكل أو شرب قفك انت هلمامو حنو حبه فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه سون كيس هسكد مسترتو لما استرتو هسيوتو إلهي باقودي أونو ورابي مركا أرنتاس وحبا ديبين ملها فدقيني قلبت أن كسو قادني سؤالها معناها شنطة انت أيا كسو قبقبينينا إلهي نحن ويجسننا سبحانه وتعالى إنه دين تيسو نغسوكو وحن إلهي ويجسننا سبحانه وتعالى عبادات كينا أن سميني كالد دون رمضان كالحديث إنه إلهي نقا أقبله رمضان غير كيسب إنه إلهي نقا أقبله نقول كوي كوبت بعضون إلهي نقا ديك سبحانه وتعالى دمان ملكستون جوغنانا مصائب كالصعودة الله نقا بتباديو النقا قرابة إن دمان تندتك مسلمين تا إلهي سبحانه وتعالى انت حنوصنا الله عافيو انت دب وحايستان دبك الله كقاضو انت معنا عليسك لا هايستان الله افضيو ان شاء الله تعالى انت ايان كلمه دين كسو كوبينا خير كان هل اسغارسيو هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.